السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhowaada daawadayaasha sharafta leh. muuqaalkeenna wuxuu daaran yahay maanta farqiga u dhaxeeya jinniga iyo shayddaanka iyo waxa ay ka yidhaahdeen culimmada muslimiinta. haddii aad nagu cusub tahay daawade, gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu abuuray makhluuqaad kala duwan, wuxuuna u abuuray ilaahay casa wajalla xikmad iyo ujeeddo uu ka lahaa. insiga iyo jinka waa labada makhluuq uu eebbaweyne ka dhigay kallafiin, oo ay micnaheedu tahay kuwo mas'uuliyadda saaray oo biridda qiyaame la weyddiinayo waxa ay sameeyaan. wuxuu eebbaweyne yidhi, wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun. uma abuurin insi iyo jinni wax kale in ay caabudaan ma ahanee. haddaba daawade, maxay ku kala duwan yihiin jinniga iyo shayddaanka? waxaan soo gudbin doonnaa laba qowl oo ay yidhaahdeen culimmada muslimiinta. qowlka kuwaad wuxuu leeyahay jinniga waa awlaaddii shayddaanka, waxaana qowlkaa qaba oo ku tegay xasanulbasri. qowlka labaad wuxuu leeyahay shayddaan waxaa la yidhaahdaa duul kasta oo ilaahay casa wajalla ka fogaaday, ha ahaadeen insi ama jinni. waxayna deliilsanayaan culimmada qaba qowlkaani aayadda wakadaalika jacalnaa likulli nebiyin caduwan shayaadiina alinsi waaljin. qowlkaasna waa kan ugu xooggan ay ku tegeen madaxyaweynta culimmada muslimiinta. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.